asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. wararka aan idin haynano waxaa ugu waaweyn puntland oo xaalad adag wajahaysa iyo ciidamo maleeshiyaad ah oo weli maamulaya magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland. xog ku saabsan joojinta wasiirka warfaafinta shuruurkii warbaahinta dowladda oo la helay gurmadkii ugu baynaa oo laga soo sagootiyey garowe kuna sii jeeda magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan. dowladda soomaaliya oo qatar kala saxiixatay heshiis shaqo loogu doonayo dhalinyaro badan oo soomaali ah. gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo xalay ku hoyday magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Somali State. madaxweynaha soomaaliya oo kulan la qaatay ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool wadanka Kenya. dibaddan waxaan idinkaga haynaa dhageysiga xilka xayuubinta Trump oo si toos ah u bilaabatay. intaasi aad daabateen waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa. haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe si aad u hesho ogaha son ee halkan aan ku soo gudbino. waana 14 bisha 11 November 2019. wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya magaalada boosaaso ayaa waxay sheegayaan in qayb ka mid ah magaaladu ay la wareegeen ciidankii shalay ay la dagaalameen ciidamada booliiska dowlad goboleedka puntland. ciidamadan oo u abaabulan qaab qabiil isla markaana ka tirsan beesha cali saleemaal oo wata tobaneeyo gaadiidka dagaalka ah ayaa qabsaday qaybo ka mid ah magaalada boosaaso kadib iska horimaad ka dhacay kontaroolka laga soo galo magaalada boosaaso ee puntland. madaxweynaha puntland ayaa wajahaya xaalad adag kadib markii magaaladu ay la wareegeen ciidankani. ciidanka isku dhacay ayaa la sheegay in ay ahaayeen kuwa ku sugan amniga kontaroolka laga galo boosaaso iyo sidoo kale ciidamo la sheegay inuu watay taliye lagu magacaabo ciise yulux. ciidamada ayaa la sheegay in ay qabsadeen jidka gala garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso iyo sidoo kale agagaarka xarumaha ay degan yihiin hay-adaha ee dowladda la shaqeeya oo ka mid ah qaarkoodna hay-adaha qaramada midoobey ka mid ah sida hay-adda WFP iyo sidoo kale UNDP iyo sidoo kale hay-adda Save the Children. tiro ku dhow 5 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen isku dhicii ka dhacay shalay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland. wararka saakeen helayna weli sheegayaan in magaaladu weli ay maamulayaan ciidamadan maleeshiyaadka ee la wareegay gacan ku haynta boosaaso. maleeshiyada hubeysan ayaa la sheegay inay gurmad ka helayaan ciidamo ay leedahay hay-ad haysatay saanka ciidanka badda ee la sheegay in ay saakay xirteen wadooyinka soo gala magaalada boosaaso ee puntland. wararka ayaa waxay sheegayaan in magaaladu ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay kadib markii ciidamadaas ay gudaha u galeen magaalada boosaaso ee puntland. madaxweynaha dowlad goboleedka puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay xarunta madaxtooyada waxa uu kulan kula qaatay saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka puntland waxaana uu kala hadlay xaaladda ka jirta magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland. xaaladda ayaa sii cakirnaatay kadib waxaana arrintan loo sababeynayaa xilka qaadistii lagu sameeyey gudoomiyihii baarlamaanka puntland cabdikariin maxamed axmed doobo. xaaladda puntland ayaa weji cusub yeelanaysa kadib markii magaalo muhiim u ah puntland ee boosaaso ay gacanta ku dhigeen ciidamo maleeshiyaada. guddiyada kale ah guddiga gurmadka fatahaadaha iyo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maalmo ka hor warqad cabasho ah waxa uu qoray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre waxaana warqadaasi ahayd mid ka dhan ah wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya. guddiyadan ayaa cabashadooda salka ku haysay in lacago $10,000 ah loo yaqaano sharuur lagu xujeeyey in ay bixiyaan si loogu qabto barnaamijyo toos ah oo shaqadoodu ku saabsan islamarkaana laga sii deyn doono radio muqdisho iyo sidoo kale telefishinka qaranka soomaaliya ee SNTV. wararka la helay ayaa waxa ay sheegayaan in warqadda ay ku qorneyd dad lacageed oo laga soo dhiibay xafiiska ra-iisul wasaaraha ee warfaafinta taasi oo lagu ballan qaaday in barnaamijyo loogu qaban doono guddigan fatahaadaha ee loo qiray in ra-iisul wasaare xasan cali kheyre warqadaas cabashada ay u gudbiyeen. cabashada ay geysteen ayaa waxaa la sheegay in sabab ay u noqotay in la joojiyo sharuurka ay qaadan jireen wariyaasha ka howlgala radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya. 23 bishii Agoosto caasimada online ayaa sidoo kale waxa uu qoray in gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yari arbaahinta qaranku ku eedeysay musuq maasuq iyo
ka ganacsiga hantida qaranka. Khayre ayaa wasiirka warfaafinta ku amray inuu soo saaro war-saxaafadeed lagu joojinayo wararka laga sii daayo warbaahinta dowladda lacag yihiin wixii xilligaas ka dambeeya, maadaama ay wariyaashu mishaar ka qaataan wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. Wasiir Maareeye ayaa waxa uu toddobaadkan soo saaray warqad, waxaana hadda lacag la-aan laga dhigay guud ahaanba wararka ka baxa hay-adaha warfaafinta ee dowladda sida Radio Muqdisho iyo TV-ga SNTV oo dhammaan laga dhigay lacag la-aan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa maalintii shalay ahayd waxa uu ka qayb galay xafladda ama bixitaanka gurmadka Puntland u dirisay dadweynaha ku tabaalaysan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo dhowaan waxyeello ka soo gaartay fatahaadda webiga Shabeelle uu ka geystay magaaladaasi. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu xafladda ku sagootiyey gurmadka loo diray Beledweyne, waxaana uu ku weelinayay xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Puntland, maamulka magaalada Garowe iyo sidoo kale kan gobolka Nugaal, culamo u diin, ganacsato, waxaana ay ka soo shaqeeyeen gurmadkan qaar ka mid ah dhalinyarada gaarka ah ee magaalada Garowe ee Puntland. Gurmadkan ayaa waxaa loo soo diray magaalada Beledweyne iyadoona lasoo warinayo in maantaba ay soo geli doonaan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Boosaaso ayaa waxaana ka kooban 20 gaari oo nooca xamuulka ah oo ay saaran yihiin raashin kala duwan iyo sidoo kale dhar loogu talagalay in la siiyo dadka waxyeelada ka soo gaartay fatahaadda webiga Shabeelle ee Beledweyne. Siciid Cabdullaahi Dani ayaa bogaadiyay dadaalada iyo sidoo kale saxirqaanka reer Puntland ay sameeyeen si loo caawiyo dadka fatahaadda webiga Shabeelle uu ku saameeyay. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani sidoo kale waxa uu mahadceliyay dadweynaha reer Puntland ee ka jawaabay cabashada reer Beledweyne, waxaana uu sheegay in Puntland ay diyaar u tahay inay caawiso dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada haysato. Gurmadkan ayaa ah midka ugu badan ee la geeyo magaalada Beledweyne, iyagoona gaadiidka xamuulka qaado oo 20 gaari gaaraya loo diray Beledweyne. Magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ayaa waxaa maalmahan ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan wadanka Qatar, waxaana maalmahan Muqdisho sir uga socday xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale guddigan ka socda dowladda Qatar. Waxaana dowladda Qatar iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya ay iskala saxiixdeen heshiis ku saabsan shaqo helidda dhalinyarada Soomaaliyeed. Heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ahaa kow in labada dal ay isweydaarsadaan kiiska shirkadaha ka shaqeeya arrimaha la xiriira qaadista shaqaalaha dadka rayidka iyo sidoo kale kuwa dibadda ka imaada. Labo, waxaa la isla gaaray in dowladda Soomaaliya ay ka qayb qaadato shaqaalaha ka shaqeyn doona koobka adduunka ee lagu qaban doono dalka Qatar sanadka 2022. sidoo kale dowladda Qatar waxay adkeynaysaa ahmiyadda ay leedahay in shaqaalaha Soomaaliyeed ay u furan tahay suuqyada shaqada ee dalka Qatar. 4, waxaa la isla gaaray in la abuuro diiwaan laga heli karo xogta iyo sidoo kale macluumaadka shaqaalaha Soomaaliyeed dhammaantood. 5, labada wasaaradood waxa ay isla qireen in ay yeeshaan xafiisyo kala ah mas-uuliyiin xiriiriya shaqada Soomaaliya iyo sidoo kale tan dowladda Qatar. Soomaaliya ayaa waxay u balan qaadaysaa xafiisyo kala duwan in dowladda Qatar ay ka furato gudaha Soomaaliya. dowladda Qatar iyo sidoo kale dowladaha Soomaaliya ayaa inta badan waxay iska kaashanayeen arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale dowladda Qatarna hore waxaa loogu eedeeyay in ay taageerto xubnaha dagaalka kula jira dowladda Soomaaliya. wafdi hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaa lagu soo dhaweeyay magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia, waxaana ay sii gaareen magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Somali State markii ay ka degeen garoonka diyaaradaha Garaadwiil ee magaalada Jigjiga. waxaa ku soo dhaweeyay afhayeenka baarlamaanka dowlad deegaanka Somali State Cabdi Maxamed Aadan iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Somali State. wafdigan ayaa waxay xalay ku kulmeen magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Somali State, waxaana kulanka qayb ka ah gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad deegaanka Somali State. mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad deegaanka ayaa qayb ka ahaa. Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu dib ugu laabto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya waxa uu kula kulmay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya. Waxa uu ku bogaadiyay daryeelka ay ganacsigoodu ku hayaan gudaha waddanka Kenya. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu warbixiyay ganacsatada xaaladda siyaasadeed ee dalka, fursadaha jira, caqabadaha ku gadaaman dowlad dhisidda Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalka ay kula jiraan argagixisada ee Al-Shabaab. madaxweynaha ayaa u ballan qaaday ganacsatada in kaalin mug leh ay ka qaadan doonaan howlaha dowladnimo ee ka socda Soomaaliya. waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ganacsatadaas ka dalbaday inay ka shaqeeyaan horumarka Soomaaliya. markayna ayaad daawanaysaan gabagabada ayaan maraynaa dibadda. aqalka wakiilada waddanka Mareykanka ayaa waxa uu ka furmay dhageysi toos looga daawanayo telefishinada waddanka Mareykanka oo ku saabsan xilka xuyuubinta madaxweynaha Mareykanka maamule ee Trump. xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada waddanka Mareykanka ayaa isku dayaya in ay dadweynaha ka dhaadhiciyaan in madaxweynaha Mareykanku uu ku xadgudbay awoodiisa si uu dana siyaasadeed u gaaro. xubno ka tirsan safiirada dowladaha caalamka ee Mareykanka ayaa sidoo kale qayb ka ahaa dhageysiga, waxaana ku marqaati furay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta waddanka Mareykanka. gudahaan warkeenni waa naga intaa. haddii aad cusub tahay janalkan subscribe si aad u hesho ogaan dahsoon halkaan kusoo gudbinayno. aad mahadsantihiin nabadgelyo.